Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiibada ku xiran janalkeena Maashil Media. Muddo aan kala maqnayn, ugu dambeyn waan soo nabad laabtay. Intii aan ka maqnaa janalku waxa uu gaaray halkii oo subscribe. Midaasna waxa u sabab ah idinka la'aantiin maanan gaarnin halkaas. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa shakhsi soo maray dalka Mareykanka, ahaana madaxa maafiyada, geystay dilal fara badan, sidoo kalena ahaa milyaneer intii u dhaxaysay sanadihii kala ahaa 1920 ilaa 1930. Al Capone qoyskiisu waxa ay u haajireen Mareykanka, waxaana uu dhashay sanadu markay ahayd 1899 bishii January, waxaana uu ku dhashay New York. Magaciisa dhabta ah waa Alphonse Capone. qoyskiisu waxa ay ka soo haajireen dalka Talyaaniga si ay nolol dhaanta uga helaan midii ay ka soo haajireen, waxaanay u haajireen dalka Mareykanka. Aabihii waxaa lagu magacaabi jiray Jibril, shaqadiisuna waxa ay ahayd timo jare, halka hooyadiis Tirsiina ay ka shaqayn jirtay harqaanle ama dawaarle. Capone waxa uu ahaa ilmihii koowaad ee qoyskooda, waxaana la dhashay 7 walaalihiis oo aad uga yaryar. Capone waxaa lagu daray iskuul da'diisu markay ahayd 14 sano jir. Muddo markii uu waday iskuulka waxa uu cadaadis kala kulmay macallimadiisii, waxaana Capone u bilaabatay qisadiisii, waxaana uu feeray macallimadiisii, taas oo sabab u noqotay in laga cayriyo iskuulka. Capone oo qoyskiisu dhaqaale fiican haysan, dantu waxa ay ku kaliftay inuu shaqeeyo. waxa uu wadada ku iibin jiray nacnac. Markii ay shaqadan qancin weyday, waxa uu ka qaaday faraha, waxaana u wareegay majalad soo saari jirtay wargeysyada. halkaas ayuu in muddo ah ka shaqaynayay. Shaqadani ma noqon mid uu sii joogo. Capone markan waxa uu shaqo kabalyeeri ah ka helay makhaayad habeenka lagu caweeyo oo lagu magacaabi jiray Harvard. nolosha Capone oo gaadhay meel fiican kana raystay waqtiyadii adkaa ee soo maray, waxa uu bilaabay inuu la saaxiibo kooxo burcad ah oo isbahaystay. wax walba oo ay arkaanna may dhaafi jirin. kooxdan burcadka ah ayuu ku biiray Al Capone. habeenada ka mid ah iyo kooxdan burcadka ah ayaa waxa ay yimaadeen makhaayadii Al Capone uu ka ahaa kabalyeeriga. makhaayaddan oo lagu caweyn jiray, waxaa halkaas Capone uu ku arkay gabadh aad u qurux badan. kadib markii ay is-afdhaafeen gabadhii, waxa uu u dhaqaaqay inuu gabadha dilo, waana uu dilay. arrintan waxa ay gaadhay gabadha walaalkeed, halkaas oo Capone uu ku soo gaaray dhaawac wejiga ah, waxaana uu wejiga kala dhacay toori. Capone oo arrintan ku dhacday ayaa qarin jiray, isagoo leh dhaawacan waxa uu iga soo gaadhay dagaalkii koowaad ee adduunka. Frankie Yeli oo ahaa hogaamiyaha kooxda ayaa u arkay Capone inuu yahay nin aad u khatar badan. Capone ayaa guursaday Juliana oo ahayd Catholic, asal ahaan ka soo jeeda Irish. ka hor intii uusan gaadhin da'da 21 sano jir ayuu sidoo kale asaastay noloshiisii qoyska. inkastoo ganacsigii uu ka shaqaynayay aad u kordhay, waxaana uu isku beddelay in uu ka shaqeeyo iibinta daroogada, isagoo marnaba ka dhex bixin maafiyada. waxa uu sidoo kale uu tabarucaad siin jiray ururo, wuxuuna runtii si tartiib ah u abuuray sawirka geesiga oo aad u doonay. xitaa waxa ay mararka ugu yeeraan Robin Hood. qayb ka mid ah. si kastaba ha ahaatee, dhacdadii dhacday 14 February 1929 waxa ay burburisay dhammaan sawirkii Capone uu sameeyey ilaa waqtigaas. dhacdadan oo loo yaqaano xusuustii maalinta jacaylka ayaa dhacday. Capone iyo burcadiisii oo loo ekeysiiyey booliiska ku weerareen ay saf galeen oo ay isku barayeen 7 qof. si kastaba ha ahaatee, Bogus Margo oo ahaa bartilmaameedkooda ugu weyn. dhacdadan oo lagu dilay 6 xubnood oo burcadda ah ayaan la dili karin sababtoo ah maalintaas ayaa soo daahday oo dhacdadan lama caddayn karo sababtoo ah wax caddayn ah ma jirin. intaas waxaa dheereed, Capone ayaa loo sheegay inuu caddeeyo inuusan waxba galabsan, isagoo caddaynaya inuu joogo fiidkii Florida. hagaag maxaa sababay xasuuqa oo la og yahay inuu yahay shaqada Capone, inkastoo aan la xaqiijin si kooban. faahfaahinta dhibaatadan oo aan ku sharixi karno in ay tahay iska hor imaad caadi ah ee u dhaxaysa 2 kooxood, waana sida soo socota. markii hore, burcadda Malcolm Brooks waxa ay xadeen 2 diyaaradood oo Capone ugu duulayay dayax-gacmeedka. marka labaad, isla kooxdan ayaa dishay 2 badhasaab oo loo yaqaano inay yihiin ragga
Chicago Oathfield. midka saddexaad waxa ay tahay isku daygii dilkii Jack Macron oo ka mid ahaa raggii muhiimka u ahaa Gabon sababtoo ka dhan ah Gabon waxa uu rabay inuu baabi'iyo sida uu sameeyey hogaamiyayaal iyo xubno badan oo burcad ah. macluumaad dheeri ah waxaan jeclaan lahaa inaad tilmaamo iyo Morin uusan aad uga fogeyn dhacdadan kadib, laakiin waxaa la sheegay inuu argoosi helay sanado kadib asagoo dilay Jack Morgan, mid ka mid ah dadka waxaa suuqay ee Philippine Mali Gabon oo ahaa ninka keliya ee la xiriira madaxweynaha Hofir isla markaana adeegsan jiray xilliga jabkii ugu weynaa si uu uga faa'iideysto, ayaa si xor ah u weeraray inkasta oo uu galay dembiye badan, waxaana uu sii watay meheradiisii sharciga darrada ahayd oo aan cidna u dhowaan karin. Tani waa sida ay ku bilaabatay sheekada qabashada Gabon oo ahayd madaxa kooxda loo yiraahdo Untouchables oo hadhow noqon doonta mawduuca filimka isla magaca Gabon oo si uun loo xidhay haddii aan ahayn dembiile oo ku galay daalkii Elitha Nesen ayaa lagu helay dembi ah cashuur Oktoobar 17keedii 1931 waxaana lagu xukumay 11 sano oo xabsi ah. Gabon oo u suurto gashay inuu ka badbaado dhammaan weeraradii lagu soo qaaday oo la isku dayay in la dilo marar badan intii uu ku jiray ayaa laga sii daayay jeelka 16 Noofembar 1939. Gabon waxaa ku dhacay niyad-jab, ayuu xanuunsaday dhowr jeer oo cisbitaalka la dhigay. Markii uu helay xorriyadiisa waxa uu go'aansaday inuu ka baxo dunidan maafiyada ah. Markii uu arkay in Farankenis uu arrimihiisa u wareejiyey wax walba uu burburiyey dhanka kale, waxa uu ogaaday inuu ka qabtay waxaana Gabon uu la kulmay marwadiisii naxdintii labaad sidoo kale Natsin xanuunkiisa awgiis oo heersa caqliga ah. Gabon oo si tartiib ah hoos ugu dhacay 25kii bishii Janaayo ee 1947 markii uu jiray 48 kadib markii lagu gubay Alenios. Gabon waxaa markii hore lagu aasay aabihii Jabraa'il iyo walaalkiis Faranki, kadibna waxa uu u dhaqaaqay qabuuraha Montes Charmin iyo Chicago Hills. sanadihii soo dhaafay waxa uu ku dhiiriday filimo sida The Godfather. insha Allah waa intaan ku kulmi doono muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.